daawadayaal ku soo dhawaada Saxafi Films Channel oo aad uga barateen arrimaha Bollywoodka sida Tamil, Telugu, Malayalam iyo kuwa kale badan. daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa Hrithik Roshan filimku ugu jecel yahay yaana atora ka aha filimkaas ilaa hadda uu daawado. Superhero Hrithik Roshan waa jilaa cajiib badan xilligu fanka uu soo galay aad buu uga yaabsaday dhammaan India iyo daafaha caalamka. wuxuu la yimid filim aad iyo aad ay daawadayaasha uga heleen Kahona Pyari Hai kaasoo noqday blockbuster weyn. qaabjiliinkii cajiibka badnaa ee filimkan uu ku matalayay wuxuu xidigan ku hantay in uu markiisii ugu horeeyay uu ku qaatay abaalmarinta atooraha ugu fiican ee ay shirkadda Filmfare. Hrithik aad ayaa loo jeclaaday deeshi wacdarada lahayd ee uu filimkan uu ku soo bandhigay. haddaba ninkan waa nin mucjiso badan wuxuuna sameeyay aflaan aad iyo aad loola dhacay sida Dom Koyimil Gaya, Krish iyo weliba Krish 3. Hrithik waa shakhsi fanka heer sare ka gaaray muddadii 17 sano ahayd ee uu fanka ku jiray, waana mid ka mid ah shakhsiyaadka farakutiriska ah ee India fankeeda sare u qaaday. awoodii xidigan waxay ku hakatay sanadkii 2009 wixii markaa ka dambeeyay xidigan awood zaid ah ayaa soo kortay, balse 2000 ilaa 2009 awood buuxda ayuu lahaa. Hrithik Bollywoodka wuxuu weligiis jeclaa oo uu taageeri jiray Raj Kapoor iyo weliba Amitabh Bachchan, halka dhanka atirishooyinka uu aad u jeclaa Madhuri iyo Kajal. sidoo kale filimka uu ugu jecel yahay Bollywoodka waa King Uncle, mana ka daalo daawashada filimkan. sidoo kalena Hrithik waxaa guul weyn ugu filan in uu la soo shaqeeyay xidigihii uu weligiis taageeri jiray qaar ka mid ah sida Big B iyo Kajal. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena. ha moogaanina in aad subscribe aad dhahdaan Saxafi Films Channel. fikirkiina waxaad noogu reebi kartaan qaybta commentiga. inta aynu dib ugu kulmayno barnaamij caynkan oo kala ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.